ururka Somaliland Mental Health Support waa organisation ka shaqeeya sidii wax loogu qaban lahaa harana loogu marin lahaa dadka ilaahay xuskooda ka qaaday ee ku dhaqan dalka Jamhuuriyadda Somaliland. haddaba xafiiska ururkaasi uu ku leeyahay magaalada Sheffield ayaa waxa uu kaalmo lacageed guddoonsiiyey guddoomiyaha ururkaasi Naasir Geeljire lacagtaasi oo dhammayd 3,500 oo giniga Ingiriiska oo loogu talagalay sidii wax loogu qaban lahaa dadka ilaahay xuskooda ka qaaday gacmahana la isugu qabsan lahaa sidii looga wada shaqayn lahaa sidii loo baahi tiri lahaa. aan soo siyaaranay magaalada Sheffield aniga iyo qayb kamid ah ururka Somaliland Mental Health Support waxaan halkan nimid walaalahayga reer Sheffield kuwaas oo tabarucaad qayb ka soo qaatay haddii aan idinka warramo ma garanaysaa ururka Somaliland Mental Health Support waa urur daryeela ummadda reer Somaliland baahan ee ilaahay caafimaadkooda ka qaaday waxaana maanta nagu soo cusubay magaalada Sheffield walaalahayga reer Sheffield oo iyaguna kaalin weyn ka qaata markaste dhibirka iyo wax kasta oo wadanka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa haddii aan idinka sheekeeyo ururka Somaliland Mental Health Support wuxuu taagan yahay dhammaan gobolada Somaliland oo dhan waa ogtihiin waxaanu gaarsiinay mucaawano gobolka Burco sanadkii hore gaarisa sanad Boorame qoysas badan oo Burca waanu gaarsiinay xitaa sakaati fidirkii Burco Hargeysa Boorame inta kale insha Allah waanu gaarsiinay markaan waxaanu gacanta ku haynaa in dhakhtarkii Hargeysa kaas oo ku kici doona 5 intii bandayna aanu rays gareynay maanta halkan aanu ururinay maanta waxaan loogu yeeray magaaladan inuu ka gudoono lacag ay ururiyeen qaybta reer Sheffield ee ururka Somaliland Mental Health Support halkan waxa jooga odayaashoodii oo mid waliba insha Allah kelmadiisa uu ka dhiiban doono iyo dhalinyarada firfircoonay waana idin mahadnaqayaa dhamaantiinba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. haddana reer Sheffield lacagan ka ururinay reer Sheffield oo ah masaajidada dukaamada macadarayaasha maqaxayaasha oo aan daasadaha dhignay tajidan aan ku camarinay maanta halka waxaan ku wareejinaynaa lacag dhan 3,500 oo gini ma sha Allah waan lacagtaas aad iyo aad baan idinku mahadnaqnay reer Sheffield ka ururiseen masaajidada iyo dadka iyo shacabka reer Sheffield waa mahadsantihiin ilaahayna ha idinka aqbalo lacagtaasi $6,000 in ka badan ma noqonaysa. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله marka hore ilaahay baa mahad leh marka labaad runtii waxaan u mahad celinayaa waftigan culus madaxdii ururkan ka shaqeeya dadka dhimirka ka xanuunsanaya awoodoodii waqtigoodii bay isugu geeyay raggii madaxdiisiba na soo booqatay aad bay u mahadsan yihiin Sheffield wixii aanu ka ururinay anigoo kamid ahaa dadkii halkan Sheffield loo xil saaray in ay ururka u joogaan oo ay ka shaqeeyaan lacagtaas soo xarootay aad bay ii raali gelinaysaa ammaanteeda koowaad waxa leh Yaasiin Jees iyo Barre iyo odayada kale ee halkan goobjooga ah ayaa runtii hawshaasi aad uga hawlgalay oo aan si gaar ah ugu sii amaanaya waxaan nootay guul ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa qof kasta oo wax ku daray in uu miisaanka xasanaadka ugu kordhiyo oo uu ka abaal mariyo in halkay galaysaana waa halkii ugu baahi badnayd ee ugu baahnayd weeye waftiga iyo cid kastoo iska xil saartay hawshaasna ilaahay waxaynu uga rajaynaynaa in uu dayacooda uu asturo oo ururiyo oo uu khayr siiyo oo uu arintaasi ugu daro miisaankooda xasanaadka uu ugu kordhiyo oo uu ugu dambi dhaafay baan ka rajaynaynaa iyo qof kasta oo wax ku darsadayba aadna waan idin wada salaamayaa waana mahadsantiin wassalaamu calaykum. ururkan halka kan dadka dhimbilka ama xanuunsanaya mitala ama hay'ad ah ilaahay baa mahad leh horta marka hore ilaahay baa mahad leh marka labaad waa mahadsantiin haddii aad ka naxdeen dadkiinii dhibaataysnaa gidaarada jiifay xaarka cunayay wax walba cunayay aan waxna ka xaaraansanayn haddii aad u kacdeen oo aad damcadeen inaad wax u qabataan jazakallahu khayr ilaahay baa idinka abaalmarin aad iyo aad baan ugu mahadsantihiin. بسم الله الرحمن الرحيم anigoo kamid ah hawlwadeenada ururkan Somaliland Mental Health waxaan doonayaa in wax yar inaan ka taabto sida uu u shaqeeyo Somaliland Mental Health iyo halku gaarsiisan yahay runtii waxaanu ka bilownay Cardiff deetana waxaanu gaarsiinay UK oo dhan meel walba xafiis baa ka furan runtii waanu ka shaqeynayaa
Europe lafteeda wuu gaadhay, Sweden wuu gaadhay, Norway wuu gaadhay oo qoloon guddi baanu dirnay oo gaarsiisay. Hargeysa waxaanu ka furnay xafiis baanu ka furnay oon ka soo sameynay sanadkan bartamihiisa ilaa bishii afraad baanu launch ka sameynay. Mansuur baanu ku sameynay, dawladdu way ka soo qayb qaadatay, dhakhtaradu way ka soo qayb qaateen, si wanaagsan baan uga shaqeynayaa. waxaana lagu tala jiraa in xaafad walba oo uu qof ka xanuunsanayo in la gaadho. waxaan imika qorshahan wadno waxa kamid ah in dadkii tirakoob lagu sameeyo xanuunsanayay qolaa imika ku maqan qolo kale oo jaamacadda Cardiff qudheeda iyadu waxay ka sameynaysaa research bay ka sameynayaan. marka haddii uu xisbigan ururkan uu ballaaran yahay Soomaaliland oo dhan uu gaarsan yahay waana wada gaarayaa. qorshaheennuna waxa weeye dadka uu sheegay xildhibaanku ee xanuunsanaya ee qaadku xanuunsanayo saynu xataa xirfad ay ku shaqeystaan ugu sameyn lahayn oo inu qaadka ka joojin lahayn oo dadka danyarta caawin lahayn ujeedadeenu weeye. halkaas goolkeenu yahay inuu ku soconaa. tan kale xagga dumarka iyo aanay ogeyn kole Sheffield waxaanu jecelnahay inaanu mar labaad ku soo noqono oo nu tusno halkay wax marayaan. marka in arrinka ballaaran aanu idinku nimaadno dumarka oo iyo dhammaantiin aynu meel insha Allah maalin isku nimaadno. ta kale si dadbanna waxbaanu uga qaadnaa oo bishii TV-gaanu soo fadhiisanaa. marka dadka reer Sheffield oo waliba dumarku u badan yihiin oo meel walba Soomaaliland 200 lacagtan imika 85 kun ee bishan Ramadaan ururinay TV-gaanu ka ururinay. marka waxaanu ka ururinay goboladan Ingiriiska iyo Europe oo dhan ilaa Hargeysa lacagta laga soo diray. marka si dadban baynu dadka lacagta uga qaadaa. marka Mareykan baa laga soo diray, Canada laga soo diray, Burca laga soo diray, qaar baa caruur dad baa Sacuudi ku soo diray. marka runtii wuu balaaran yahay, wuu sal balaaran yahay ururkani. waxa kale oo idin bushaaran xataa waxa inoogu iyagu ka qayb qaatay oo imaka aanu gaarsiinay ururada caafimaadka Ingiriiska ayay partnership la sameynay oo inala shaqeynaya oo Europe Belgium bay iyada qudheedo training bay nasiiyeen. marka runtii lacag bay xataa bixiyeen imaka wadankii lagu sameeyo training lagu bixinayo. marka waxay nagala qayb qaadanaya ururadii kale ee reer galbeedka laftooda bay nagala qayb qaadanaya. marka uu ballaaranaya waxa loo baahan yahay runtii dhakhtarku meel walba dayacaad ba ka muuqata in qof kasta oo Soomaaliland jooga inuu tago masaajidada Hargeysa $5,000 bay noo keenay markaanu tagnay 4 masaajido kaliya. marka cid walba nagala qayb qaadanaysa waanu ballaaran yahay waana mahadsantihiin reer Sheffield sida wanaagsan uga nagala qayb qaadateen. wixii kale waa laga warramay anigu waxaan doonayaa inaan ka warramo in yaroo ku saabsan long term ka waxaan doonayaa inaan qabano. dhakhaatiirta waddanka ka dhisan markii hore waxaa shaqaynayay 2 mid ayaa ka shaqaynayay ka Boorame ka Burco. labadii waxaa soo raacay iminka kan Hargeysa dar gacanta lagu hayo iyo kala Gabiley laga dhisay. marka qorshahayaga anaga noo dhisan wax weeye markaanu kan Hargeysa dhameeyno mushkiladda ugu weyn wax weeye Burco ayaa waxa haysata ilaa South Soomaaliya ayaa ku furan. marka si looga kala rogo dhibaatada facekayga labaad inaanu qabano ceer gaaban mid ka dhisno laascaanood aan mid ka dhisno say dabadna Burco dhibaatada uga yaraato. gobolladan wada wax la wada gaarsiin wadanka dhinac laga raro ayaanu ka dadaalaynaa. bismillahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala muhammad. mahad baan ilaahay baan mahadnaqaynaa marka ugu horeysa. marka xigtaan ugu waxaan mahadnaqayaa guddidiinan mid dibad ka timi iyo mid halkan joogtaba soo xil saartay dadka. anigu waxaan dadka had iyo jeer tagtaga wadankii calool xumo ka weyn dadka waalan dadka xanuunsanaya والله أن أنت كودا لمن أنت ما أنت نشوفيل كبلوننا يهشين كنا نقولناه وضحنا كلهم كذا إلهي واحد اللقب تما إلهي واحد اللقب تايدين كرجارو وأنا دي لقرب تاجني ورا أنت هذين وحق منه والله في آخر بوا فائدنا يا آخر بوا كون فائدنا ينا كوهشنين ممكن أنت ذالنا كوهشنين مرنا كوهشنين في آخر بوا هالكاس اللي جوجارية. السلام عليكم ورحمة الله. تذكرنا جوري أي نوجارنو أن guri ay u gaadho caafimaadkaas waxaana weeye if iyo aakhirabana wax weeye waa waxtar waana wax weeye if iyo aakhiraba marna naftaadi baad wax tartay aakhiradaadi baad wax tartay. marka dadka waxaan ku aaminayaa arrinkaas in aad iyo aad looga qayb qaato horena waa looga wada qaatay inta dambena laga qayb qaato qoladan isku xil saartay ee hawsha wadana aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa. waxa weeye xil ina wada saaran baa qaadateen xilka lama wada qaatay cid un baa qaadata. marka adiga ayaa kala walka arrin kale oo farxad leh inay maanta aqoonyahankii reer Soomaaliland cilmiga sakaatshka nimankii expertka ku lahaa inay maanta nala shaqeynayaan
waxaa kamid ah doctor Yacquub oo ah in Sweden jooga, waxaa kamid ah doctor Jamac oo from Norway oo imika wadankii jooga oo online ku train gareeya dhakhtarka Burco. Yacquub Sweden buu ku train gareeya. Waxa kale oo aan la xiriirnay oo aanu ma sha Allah doctor Jamac isku ay xiray ururka Somaliland Mental Health Support doctor Bergel Aadan Ismaaciil Bergel oo ah nin highly consultant ka ah Canada. Wuxuu doctorkaasi ii sheegay inuu dawooyinkii oo dhan doorkan u sido Burco Berbera wadanka oo dhan insha Allah dawooyinka feenay u sido trainingna soo bixin doona hadii la yiraahdo. Waxaan kaloo idin sheegi doonaa hadii la yiraahdo in dhakhtarada intii aan awoodi karno Professor Cali Salaan wadankii imika joogo dawladda Welshkuna ay nasiisay grant lacag gaaraysa 5,000 oo lagu sameyn doono advocacy waxa la yiraahdo training dadkan xanuunsanaya sidii awareness loo siin lahaa iyo sidii loo tababari lahaa dadka hayay nurse-ka dhakhaatiirta reer Somaliland. Arrintaasina ay ka dhici doonto gobolada Somaliland oo Professor Cali Salaan iyo gudoomiyaha Xaashi Abdullaahi Xasan oo jooga maxaydeyn Hargeysa dameer heesh filaadaynu nahay sidii aynu maxaa la yiraahdaa arrintii aynu wadnay ee dhimirka ee isbitaalada Somaliland ee aynu awalba ka qayb qaadan jirnay in aynu hadii la yiraahdo maanta halkan aynu la joogaan xafiiskeenii Cardiff in aynu lacag ku wareejino dhan 3,500 oo gini. marka odayaashii magaalada dhammaantiin aad iyo aad bay u mahadsantihiin. shirkeennuna sidaas ayuu inoogu xidhan